waxaa dersi loo dhigtaa, waxaa diin loo bartaa, waxaa dadka loo hagaa si loo helo darajo wacan, waddaniyad loo hamiyo inay sii horu marto, haddeertan la jooga iyo hagaagta hadhowtabo dareenku hagaago badi. waddaniyaddu waa dareen qofnimo iyo damiir ummadeed, taasi waa shakhsigeeda ku dhalisa jacayl uu qabo dalkiisa iyo dadkiisa, taas oo qofkeeda ka dhigta shakhsi ka damqanaya wixii xun ee dalkiisa iyo dadkiisa loo asteeyo, una damqanaya dadkiisa iyo dalkiisa. taariikh ahaan waxaa waddaniyadda la sheegaa in ay jirtay aadanuhuna ku baraarugeen muhiimaddeeda dhalashadii nebi ciise ka hor. waxaase aadanuhu si weyn u isticmaalay fikraddan muhiimaddeeda, si weyna loo fahmay xilliyadii taariikhda ee lagu calaamiyo fufka Yurub amba European Renaissance. waa xilli ummadihii ku noolaa dalalkaasi ay u adkaysan waayeen dulmigii iyo dibindaabyadii ay wadaadada kiniisadu ku hayeen ummadahooda. waana xilli ay dhallinyaradii waagaas noolaa bulshooyinkaasi ay u istaageen inay ummadahooda ka xoreeyaan dibindaabyada wadaadada kiniisadaha ku xidhan, dadkana u horseeday walaahow iyo mugdi nololeed. waana xilliga ugu caansan taariikhda casriga ah ee waddaniyadda. waxaa fikraddan taageero buuxda siiyey hanaqaadkeeda raad weyna ku lahaa qaar ka mid ah khubaradii cilmiga ee xilligaasi noolaa, kuwaasi oo daayartii waayahaasi ku baraarujiyey muhiimadda ay leedahay waddaniyadda iyo in dalkaaga loo adeego maskaxdana laga xoreeyo wadaadada kiniisadaha uun ku eeg dadkana dhiigmiradka ku noqday. waxaana la aaminsan yahay in ummadda damiirkeeda waddaniyadeed oo dhammaada hababa daciifa uu astaanu yahay dabargo ku soo fuullay ummaddaasi. qarniyada dambena aysan macquul ahayn inay si jirto ummad aan lahayn wax isku haya amba waxay wada jecel yihiin oo ay wada ilaashadaan. haddaba dhallinyaro ma la jooga xilliga aan ka shaqaysiin lahayn caqliga caafimaadka qaba oo aan u istaagi lahayn samata bixinta ummaddan cadowga u dayacan ee aan dadkeenna iyo dalkeenna ka xorayn lahayn siyaasi ku sheegga maanta ku buuxiyey kuraasta waddanka una adeegaya quwado shisheeye ee aan lahayn damiir ummadeed iyo dareen waddaniyada toona. ugu dambayn, waxaan joognaa haddeer markaan wax istari layn, bulshada aan waanin layn, waddada aan u sixi layn, markaan weynayn layn awoodaha waafigee weynihii noogu deeqay